lamaanayaasha ugu qariibsan dunida ayaan kugu soo qaadan doonaa muuqaalkan. Qaybtooda haweenka, qaybta dumarka dhaqama iyo waxyaalo ayaan kaga eegi doonaa meelahaas. Haweeneydii bisada ahayd. Haweeneydan waxay gashay dhowr qaliin sidii ay ugu ekaan lahayd bisad ama yaanyuur sidii ugu ekaan lahayd waxay ku bixisay lacag 4 milyan oo dollar ah waxayna gashay dhowr qaliimo. Waxaana ku qasbay ayaa la leeyahay inay qaliimadaas gashay bisada soo ekeysiiso odaygii ay wada noolaayeen ama odaygeedii ayaa waxa uu aad u jeclaa bisadaha waxa uu ahaa nin hantiilo ah ee billionaire ah ayuu ahaa. Wuxuu aad u jeclaa marka bisadaha. Islaantii waxay ku fikirtay haddii odaygeedii bisadaha jecel yahay in ayada bisad isku ekeysiiso si odayga qalbigiisii ay u degto saasna oo jecelkoodii ku sii weynaado. Waxayna keentay in dhowr qaliin gasho 4 milyan oo dollar lacag ahna kaga baxdo. Aakhirkiina waxaa dhacday in odaygii uu maxkamadii tagay uu xilligii uu furayay maxkamadda la weydiiyay maxaa keenay inuu islaantiisii furo. Waxa uu ku jawaabay qaliinka wajiga ay galayso waxay u maleysaa oo dhahay sida alaabta guriga loo bedelo kale ay ka aaminsan tahay oo waxba dhib ah lama lahan uu yiri sida alaabta u bedeli lahayd ay wajigeeda hadba mar u bedeshaa qaliimada ay u galgashaa. Laga yaabay inuu jabkiisii u naxay maadaama 4 milyan oo dollar ay sii maray qaliimadii wajiga lagana yaabay inuu ayada shakhsiyadeeda u naxay oo qaliimada tirada badan ay galayso walow markii dambe markay kala tageen sanado yar kadib uu geeriyooday. Waa had islaan milyaneer ah ayadana hantiilo ah adirtaan. Boqor jirkii xooga weynaa Edith Moray islaantan waa islaan u dhalatay dalka Mareykanka hooyadeed waxay ka soo jeedaa dalka Ireland waa hadirtaan waxay jirtaa 100 sano 2019kii xilli ay jirtay 98 sano meelahaas 2019kii waxay u tartantay inay noqoto qofka ugu xooga weyn ama qofkii qaaday culeyskii ugu badnaa dunida xagga dumarka marka la yiraahdo oo waxay qaaday 150 kg ayay qaaday waxayna saas ku gashay World Guinness Recordkii 2019kii ay sidaas ku gashay inay noqotay qofkii ugu xooga weynaa dunida da ahaan ugu weynaa ayay noqotay walow dumarka yar yar da ahaan 40 iyo 30 ku jir ay la tartamayeen haddana ay noqotay kaalinta kood qofkii galay. Waxaa la marka islaantan waxaa niyadaas iyo hamigaas u yeelan waxay tahay dabeecad ahaan horta waxay leedahay islaanta in waxaan ma sameyn kartid way wanacabta inuu qofku yiraahdo haddii qofku yiraahdo waxaan ma sameyn kartid waxay jeceshahay inay qofkii cagsigeeda tusiso wixii ma sameyn kartid ilaa inay sameyso inay qofka tusiso waa qofta xadiga jecel saas aan dhihi karnaa. Marka xilliga waxaa dhacdan lahay sida ayada ay sheegtay in islaan saaxiibteed ahayd oo gym iyo wax loo soo diray inay gym gasho ay raacday waxay u raacday meeshii gymka iska soo diiwaan gelin lahayd oo galabteedii koowaad ay ahayd markii meeshii gymka markii islaantii saaxiibteed ahayd u raacday waxay ku aragtay gabdho la tababarayo oo gymkii ku jiro gymkii ay waxay ku aragtay gabdho tababar meesha u joogo oo culeyskii iyo birihii iyo wixii qaadaa jimicsi sameeyay meeshii ku aragtay maadaama islaan iska 90 jir oo guri iska joogto waxba qabayn ay ahayd waxay u ekaadeen tasliye iyo waxyaalo waqti lagu dhumi karo oo u baahan fani camal ah wixii u ekaaday gymkii biri la qaaday waxay go'aansatay inay markii meeshii gasho gymka iska soo diiwaan gelisa ayadana sida meeshii ayadana waqti ugu dhumi lahayd waxyaalahan gabdhahan ay sameeyayaan u ekaatay ciyaartana ay geeskeeda kaga sameyn lahayd taasa ku keentay bahashii la tagtay gaarsiisay inay World Guinness Recordka ay u noqoto xagga dumarka qofkii ugu xooga weynaa ama qofkii qaaday culeyskii ugu badnaa dhanka dumarka. Asha Mandela gabadha ugu timaha dheer dunida 2021ka isbuuc kasta marka la hagaajiyo waxa ku baxayso in 6 caag oo shaambo ah tinteedii lagu dhaqo saliidana iska qiyaas 6 shaambo oo 6 caag oo shaambo diitin lagu dhaqay saliidana iska 6 caag oo kale naqo kartaa oo saliid in loo mariyo oo tinteedii la hagaajiyo marka waxa ka saacido odaygeeda marka hore wuxuu ahaa nimankan ka shaqeeya meelaha timaha lagu hagaajiyo lagu qurxiyo lagu dhaqo oo timaha ayuu odaygeedii marka hore ka shaqeey jiray markuu gabadhan taariikhdeedii media ka maqlay ayuu jeclaaday inuu la xiriiro markuu la soo xiriiray muddo 8 bilood kadib ay isguursadeen waana dad isqabo oo asaga maadaama shaqadiisa ahayd markuu timaha wax hagaajiyo asaga asbuucii tinta ka dhaqdhaqo markay magaalada aadayso oo ay rabto magaalada dan ka yarato waxay ku qaadaa boorso ay leedahay tinta lagu xareeyo boorsadaas ay gacanta ku wadataa tintiina maysan jarin muddo 25 sano ah maysan jarin
intaasaan kusoo koobaynaa. Haddii taa markii kugu horreysay aanu soo booqata subscribe noo saar gambaleelkana furo. Hadaa hore noola joogtane waa ku mahadsantahay la joogaada asxaabtaada u sii sheer garay like-na noo saar muuqaalka.